السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري مانتو أصحابتي دي channel كبشارة دايما كحرناد هالكم بينا قوض السلام على دمانتينا وحان الله هاي كسور دوادا قلبي فران إيوه قعمة فران بشارة دايما مانتو حينها يساوح بدن بد أغبرتين روايات يمحال لها شيكو يمحال لها مسلح روايات وسجلو مانتو حينها يسا قصة عجيبة on aad aniga oo la dhacay on ka dhinaxay qisooyinka barna waa qisooyin xanuun badan qisooyinka qaarna waa qisooyin lagu farxo qisada maanta waa qiso naxdin ah oo ku dhacday asxaabteyda in kamid ah waxaan in leeyahay aqyaaray wiil baa waxa ku dhacday oo asxaabteyda kamid ah qiso wiil iyo gabar baa waa is soo jeclaadeen markay is soo jeclaayeen waqtiyaha badan bay is soo jeclaayeen adii sanada bay is soo jeclaayeen sanadadii kadib waxaa dhacday inay maxaa la dhahaa gabadhii wiilka khiyaano u wadatay oo khiyaanada gabadhii ay waday wiilkii uu fahansaneen oo dib u ka soo ogaan doono markuu ogaadayna qisada aad bay u naxdin badneed uu ku ogaan doono marka waxaan ina leeyahay qisadaas dhacday wiilkii maalin maalmaha kamid ah ayuu magaalada joogay uu ka soo tagay magaaladii gabadha ku nooleed yuu imaaday markuu magaaladii gabadha ku nooleed wiilkii imaaday waxaa dhacday inay gabadhii uu waco oo telefoon u diro telefoonka kadib luuqadaha dadka ma wada yaqaano kale luuqada waxa isla wiilka kula ma fahmay aad ku hadlayso mana garanaya islahayd gabadhii baabuur raacaysa luuqad ku hadashay ninka darawalka waxay ku dhahday meelaha kamid ah igee meelaha adi dalxiisyaha loo tago meel kamid igee meelihii markuu geeyay macnaha gabadhii intaan la geyninba gabadhii wiilka codkii uu maqlay asxaabtiisu la wadaagay nin saaxiibkii ah oo ku dhahay gabadhii qisadaas waxaas samaysay meeshaas wayna qofka igee leedahay niyo ma raacaysaa masane anaa aado marka wiil saaxiibkii soo raacay meelaha dalxiisyaha loo tago ahayd meesha dalxiiska loo tagay ayadoo nin la fadhido iyo wiilku way imaaday markuu imaaday ee kolay wixii way dhaceen gabadhii way isku naxday aad bay u naxday qisadii ayadana may ogeyn ninkan inuu halka kaga daba yimaanayo oo halka ugu tagayo markuu meesha tagay way aragtay inaba sidan baad samaysay walaal khiyaanada intan la eg maxay ahayd gabadhii way naxday wiilkii adigu ka soo tagay kii kalena may calfanin kii ay khiyaanaysayna may calfanin wixii dhacayba maxaa la dhahaa kadib waxaa dhacday qisadii inay gabadhii dib wiilka u soo jeclaato oo wiilkiina uu jacaylkii sidaa kaga dhamaaday marka gabadhii adi waqtiyo badan bay jacaylkii la daalaadhacaysay dhalinyarada mido kamid ah iyo haddana la wadaagtay jacaylkii waxay dhahday saxaabay waxaan rabaa in ninkan liigu celiyo oo hadda maanta la isku soo kaana celiyo oo aniga raaligelin ka bixiyo raaligelintiina waxaa ahayd to ay ku qasaartay mid ay ku faa'iiday horta ma ahayn ninka wuxuu yiri aniga jacayl hal mar oo soo maray laba jeerna jacayl dadku ma dhaca halkii markaa way iga faa'iideysan weyday khiyaano igu samaysay aniga diyaar u mihi gabadhaadu waxay ahayd ba jacaylkii sidii iyo ooga dhamaaday wiilkii gabadhina ee oola xanuunsatay waxaan in leeyahay asxaabtayda gabadhaas iyo wiilka hadda gabadha jacaylka la xanuunsan ee wiilka khiyaantay maxaad kula talin lahaydeen baan in leeyahay marka youtube-ka bishaara dheeman subscribe-ka iyo share-ta iyo like-ga ka iloobina saxaabe